أحمد آدن حاشي wuxuu Muqdisho ka yahay qaylo-dhaan lugaynaya waa fariimo wadaha xanuun ku dilaya digniin hore la'aanteed COVID-19 waa isqaame u taagan badbaadada nafta bulshada lugtiisu maalaa bacadka Muqdishada baaxadda weyn hubkiisu waa codbaahiye لوجيا وعنون لوجيا وحاوي طبقة دقيقة وحلا هلا كنتن قفود طبقة كلا كنتن ساعدي كل واحد وحلا شاكيستا بقلال قف صومالي مركز تراد دتك حيرة إلا وعي يجلي وحلا شاك وعيالها حتى الراعي وعكمل إن قفك أت كلا فواتين وعت kala fogaansho iyo farxad joogta ah buu ku baaqayaa wuxuu ka digaa halista koronaha kumanaanka dilay isagoo booqanaya rugta barakacayaasha xaafadaha xamar suuqyada iyo goobaha bulshadu isugu timaado oo wali camiran nolosha caadiga ah buu socdaan shaahi waa la wada cabayaa isku maashi caadiga waa jira salaanti way jirtaa wasaska waa isla raacaya meel walba dadkii sida caadiga ah buu socdaa marka ariga maadaama markaad dhageysata adduunyada wax ka socdana oo nin walba uu foojigan yahay aniga dadkeena yihiin dad aan foojignayn marka taas waxay ugu kaliftay anigana microphone-kayga aan dadkayga wacyi geliyo aan wax u sheego kaalinteedii muwaadiniinta Suldaan Maxamuud Deer Axmed ayaa qaba in dadka Soomaaliyeed sahladeen xanuunka coronavirus oo ay iska indhatireen fariimaha caafimaadka Soomaalidu waxay tiraa doon qadar alla barato qoladaada looma dhiibto dadka qaar baa iska dafirsan oo wixii is ilaaliyo markii la yiraahdo is ilaalin war ilaahayna qab awrtaadana jira la yiri hal is ilaaliyo quraanka hal la akhristo bulshada qaarkood wacyigelintu waa gaartay oo kuwa ka feejigan corona una hoggaansamay talooyinka hay'adaha caafimaadka Soomaaliya waxa ku codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay wacyigelinta wiilkana mar si fiican loo muujiyo wacyigelinta gacmaha la iska dhaqo oo geedka la xirnayo la xirto oo guriyaalka oo meelaha oo dadka soo bataan aalatiga ku codsanayo dadweynaha waxa muuqata in dadka qaarkood ay ka gaashaaman yihiin coronavirus oo ay aaminsan yihiin haddana waxaa jira dad wali aan hoggaansamin awaamirta iyo sidoo kale wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahan faafinayaan kuwaasi oo ganacsanaya isku imanaya salaan sameynaya isku dhawaanaya oo aan tixgelinayn awaamirtii in hoggaansamaan ganacsiga ayaa socda gaadiidka ayaa socda dhammaantood way shaqaynayaan maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka